khatray ibraahim mee waxaan ku yidhi ibraahim maanta siduu u labistay oo u qabtay feestadii 12 abriil weli ma imanin waxay yiraahdeen dagaal baa dhacay oo miiskii saraakiisha rag lagu laayay in waxna lagala baxay marka saraakiisha tirakoob baa lagu sameynaya marka ibraahim waa inuu yimaadaa markuu ku yimaado waxaad ku tiraahdaa xeradii baa laga rabaa waayahay baan ku yidhi way iga tageen nimankii haddana cabbaar markaan joogay waa isla habeenkii ula baxay haddana waxa ii yimi niman kale oo fara badan oo iyaguna saraakiila nimankaa waxaan ka garanayay oo la socday ninka la yidhaha Faysal Cali Qaafi nimanka waxay igu yidhaahdeen ibraahim lama hayo miyaa lama hayo baan ku yidhi ibraahim miyaad disheen ma ibraahim xagu jira sidoo feestadii u qabtay uu maqan yahay laba goorna waa ii timaadeen maxaa jira baan ku yidhi marka mid baa intuu hadlay wuxuu yidhi walloonu haddaanu isagu wax dilin la diline hadduu yimaado xeradii ha yimaado ha iska soo rabuuriyo markaa nimankii way iga baxeen sidaada iga baxeen markaa Faysal baa la socda Faysal intuu in yar ka yara cag dambeeyay ayuu afka intuu ii soo dhubay wuxuu igu yidhi guriga iska baadh ninkii wuu baxay dabadeedna nimankii buu raacod nimankan uu la socdo ka baqanaya sidii bay igaga tageen sidii markay igaga tageen anigu gurigii baan dabadeedna dib ugu noqday gurigaygu uu miinaysan yahay meel walba waxa yaala hub gabigiisaba de waxa lagu hayay asalaam gurigii baan markaa baadhay gurigii markaan baadhay waxaan ka helay rasaas waxaan ka helay baastoolad waxaan ka helay bambooyinka kuskusan qoryo yar yar adoo wixii markaan wada helay oo dhan gurigaygu wuxuu ku yaalaa udhacdheer albaarkada baanday dabadeeda total agtiisa wixii oo dhan intaan go' ku guray waa saq dhexe ayaan waxaan geeyay xaar wadada agteeda maan tuurna waxaan sabdaa tuurtood ku tuurto armay qarxaan qunyar baan intaan meel dhigay ayaan dib isaga soo noqday waa saq dhexe guriga cidiile ma joogto inankayga yaraa iyo anigoo ku dhaanay xitaa inaan iima shaqayso hablihii shaqaynayay isaga iga eriyay gurigii markaan kusoo noqday adigu habeenkii oo dhan intuu dadnaa anigu waxaan baadhayay guriga wixii aan isla suuliga geli karaan suuligan ku ridaa wixii waraaq aan gubi karo waan gubaa sidaan habeenkii oo dhan sidii wuxuu ku kala baadhayay subaxii salaadii ayaa waxaa ii yimi hooyaday iyo reerkood buro yaacayo soo maqlay sheekadii waxa la igu yidhi ibraahim mee waxaan ku yidhi ibraahim ma hayo wax warana ma haysid haa iyagoo halkii la fadhiyay leeyihin miiskii saraakiisha wax ka dhaceen oo waa saas ayaa waxaa ii soo galay niman kale oo dhabar jabinta ah oo dharcada nimankii waxay igu yidhaahdeen waxaanu rabnaa gabadhii ibraahim koodbuur waxaan ku yidhi waa aniga waxay igu yidhi carruurna imisuu lahaa waxaan ku yidhi labada carruura waxay yidhahdeen wax dhibaato ku gaadhaya haba yaraatee ma jirto laakiin su-aashaan ku weydiino saan inooga jawaab maqsinkii fadhigay fadhiisteen waan u galay markaan u galay su-aashii u horreysay ay weydiiyaan waxay ahayd ibraahim iyo cabdilaahi askar maxay isu yihiin waxaan ku yidhi maba garanayo cabdilaahi askar kaad sheegaysaan anu markaa ninka cabdilaahi askar ba uma aqaanay cawil baan u aqaan ma garanayo baan ku yidhi waxay yidhahdeen ninkan uu jeelka kala baxay maxay isu ahaayeen ma garanayo baan ku yidhi nin jeelka kala baxay habara wal ibraahim maxay u tahay waxba hooyadii mahabara walba maya adigu mahabara walba tahay may okay ibraahim yuu la saaxiib ahaa yuu raaci jiray waxaan ku yidhi ibraahim ciduu la saaxiibkaa iyo ciduu raaci jiray dee anu ma garanayo rag dareysle oo saraakiila oo gaanile oo cid walba le bay israaci jireen aniguna magaalada waaban ku cusbaho iminkaan imi oo reer beledweynaan ahay bes dabeedna waxay gu yidhahdeen haddaad si fiican u warrami weydo adiga iyo carruurtaaduba jeel baa gelaysaan dabadeedna way iga tageen waa lagu soo noqonayaa bay yidhahdeen sii feker waa inaad si fiican u warranta galabtiiba haddana gaari Toyota oo socda anigoo halkaygiis ka jooga ayaa haddana ii yimi galabtii markuu gaarigii Toyota ii yimi ayuu wuxuu igu yidhi warran bay igu yidhaahdeen wax war oo kale ma haysaa cusub may baan ku yidhi anigu waxa la waxaan war hayo ma jirto dabeedna waxay igu yidhahdeen waa lagu xidhayaa way qaadeen gaari maxaan ku idhahdaa ee Toyota ayaa dushiisa la igu yidhi fuul labadii ciyaal ahaana waa layla qaaday dumarkii la joogay iyo hooyaday baa yidhi carruurta waanu ka reebaynaa kama reebaysaan baa la yidhi ku dara waana la isku kaya qaaday waxaana lagu xidhay markaa stationka weyne Hargeysa stationkii markii lagu xidhay anagu habeen ku jiray waxa layga daba keenay 3 nin oo ilmo koodbuur ah Cabdi Koodbuur iyo Maxamed Koodbuur oo imka dhintay iyo Xaashi saddexdooda waa la soo xidhay stationkii baan saddexdiiba ku wada xidhnayn muddo markaan stationkii ku xidhnayn aniga habeen walba waxa la wareysan jiray waran on sheeg ninkani dadku la saaxiibka ama bay'ad mushtara noqdeen ama askar ha noqdeen
ama ciday doonaan baa noqdeen adigu cid uu noo sheeg adigana waan ku sii daynayna anu markaa cidna waan sheegi waay bes dabadeedna markaan waxba sheegi waayay habeen walba way ila baxeen markii dambe way dileen laad baa waxay igu dhuftay nin haystay markaa meesha booliiska oo sarreelna la odhan jiray ayaa dabeedna naagtan yare aan hadalba sheegayne isdhagatiraysa buu yidhi dabeedna bahal laadaba halkaa igaga dhuftay laadkii markuu igu dhuftay adigu saacada kadib fool bay qabatay uur baan lahaa markaa 6 bilood 7 bilood ku dhow markaa station booliiska dhexdiisii baan ku dhalay suuliga station booliiska ku yaala dhexdiisaan ku dhalay suuliga markaan ku dhalay halkii waan dhiig baxay dumarkii maxaabiistahay meesha igula xidhnaa unbaa i caawinayay kabacdi waxaa noo timi hooyo iyo islaan ay hooyada ilmaabti haayeen alla yarxamay imka way dhimatay oo islaanta baanday xadiyo labadoodii baa yimi waxay ku yidhaahdeen waar gabadhan meydka ah aan qaadano noo sii daaya dabeedna waxay ku yidhahan qaata markaa anigu waan suuxsanahay isma ogi waan dhiig baxay dabeedna waxaa lay dhigay dhakhtarka weyn ee hargeysa ee dhicisyada dhakhtarkii markii lay dhigayna waxaa laga keenay haddana gaadh iyo ilaaliya gaadhkii baa muddo dhan ilaalin jiray markaa gaas dari aanan lahaan jirinna naxdintii baan qaaday dabeedna orga wuxuu ku yidhi orga markaa dhakhtarka haystay dhakhtarka dumarkana ahaa dhakhtarkana ahaa orga markaa wuxuu yidhi askartiiba wuxuu ku yidhi gabadhan gaadhka ka dulqaada gabadhina way dul fadhidaa daaqada dhakhtarkan ku jirana waxaa lagu ilaalinayaa iyadana askar iyo qalab markuu orga saa ku yidhi ayay waxay ku yidhaahdeen gabadhan waxaan ka baqanaynaa inuu soo dhaco waraabihii qabay oo uu la baxo ee maadigaa ka mas-uul noqonaya baa lagu yidhi haddii ay tagto oo la waayo wuxuu yidhi anigaa ka mas-uul noqonaye ama qaato jeelka geeya ama ka taga dee ma bogsanayse qof aad dul taagantihiin naxdintii baa ku taaganay bes markaa waa layga kaxeeyey gaadhkii wixii orgaa dabeedna waraaqa laga saxeexday waa la iska tegay orgaa markaa aniga ii yimi wuxuu igu yidhi dhagayso ina qayla weynaay haddii aad iminkaba siday sheegayaan waraabihii kuu soo dhaco oo damco inuu ku qaato ha iga tegin buu yidhi ilaan haddaad tagto anaa halkaaga gelaya waxaan ku yidhi okay hadduu yimaado ii soo dhaco kaama tegayo orga sidii baan markaa ku ballanay dhakhtarkii baan muddo ku jiray adigu waan yaro ladnaaday dabadeedna waan ka baxay dhakhtarkii waxaan tegay gurigayagii gurigii markaan tegay aanan joogin 3-4 cishaba haddana waa laygu soo celiyay jeelkii haddana waa layga sii daayaa haddana waa laysoo celiyaa haddana waa layga sii daayaa haddana waa laysoo celiyaa adugu markii dambe waxaa laygu yidhi maalin walba waa inaad soo saxeexdaa xafiiska dhabarjabinta timaadaa inaad joogto aad iska soo rabuurisaa sidiisaan ugu jiray ayaa markaa allah yarxame ibraahim ayaa iisoo diray waraaq iigu soo dhibay nin la odhan jiray cabdicase oo gaadhi lahaa cabdicase waraaqda wuxuu soo dhexgeliyey taayirka iyo taayirka ka hooseeya dhexdooda ayuu warqadda soo geliyay warqadii oo madow aan waxba ka arkaynin ayuu ii keenay warqadda intii aan akhrisanayay wuxuu igu sugayay maqsinkan kula jiray albaabkiisa dhamayso buu igu yidhi markaad dhamaysato waan gubaynaa warqadii baan akhristay warqadda markaa waxaa ku qoran bal in barasharka lagaa yareeyo waxaad ku tiraahdaa fasaqaad ayaan qaadanaya okay warqadii markaan akhristay warqadii waan gubnay subaxii baan waxaan tegay maxaan ku idhahdaa ayayin maxkamadda weyn subaxii markaan maxkamadda tegay hooyadayba waxay igu tiri hooyo waxba ha tegin waxba ha doonanine inaga daayo iska joog waxaan ku yidhi hooyo sidan nolol maahe mar hadduu ibraahim igu yidhi warqadda qaado waan qaadanaya waan doonanaya adigu iska dhaaf aabba igu yidhi isna orod doono in barasharka lagaa yareeyo waan tegay maxkamaddii baan tegay maxkamaddii markaan tegay markiiba waxaa la yidhi oo waxaa lay siiyey warqaddii fasaqaadda waxaa laysoo siiyey lacag fara badan tiradeedii imka ma garanaye gaadhi baa laysoo saaray waxaa laygu yidhi waad ku mahadsan tahay nimankaa tegayna meher idiin hayaa haba yaraatee ma jiro waa niman xaaraamiina dumarka kale ay ka tageenna u sheeg oo waxaad ku tiraahdaa qaata warqad anna waa laysoo kaxeeyey gurigayagii baa lay keenay anigoo lacag wata warqadii wata aduu markii intii ka dambeysay waxaan helay nefis waa la iska kay daayey markaa waan biliifiba waayey in lay daayey dabadeedna waxaan qabtay berberaan 2 wiig ku maqnaa 2 wiigan berbera ku maqnaa ayaan soo noqday hooyey baan waxaan ku hooyey cidi dayday samee aragtay waxay tilmay idina kuma dayday wallahi waa lagu daayey halkii baan dabeedna haddana waxaan qabtay burcaan haddana waxaan ku maqnaa muddo bila oo inaan maadaray degantay
bishii markaan ku maqnaa haddana cidii may deedeen waan soo noqday soo noqodkii aan soo noqday waxay igu dhacday markaa gastridii markay igu dhacday ee nabar noqotay markaa saasaan gabigaygu way isugu soo gutay waxaa yimi markaa odayga ahaa wasiirka kalluunka Cismaan Jaamac ayaa yimi Hargeysa dabadeedna odaygii baan raacaan waxaan qabtay xamar baa markaa waxa la geliyay tuumbo gastrid dabadeedna gastrid baa la iga helay waxa dhacday xamar markaan tagay in qofkii saaqa ay arkaaba uu iga baxsado oo xitaa gurigii markaan joogay in adeerkay ay dadku igu oran jireen ha ka soo bixin maqsinka ha ka soo bixin waxa la oranayaa naagtiina koodbuur baa joogta gurigani dabeedna waxaan iri dadkan ka wada baxsanaya ka baqanaya maxaabad ka dhex qabanaysaa anigu beledweyne ku koray anagoo yaryar baan beledweyne tagnay beledweyne reeraha iyaga aan kula koray ee hawiye ayaan dabeedna u tagay reeraha iyaga baa cir iyo dhul bay iga qaaday isoo dhaweeyay gurigoodii baan degay dhakhtarkii iyaga ay geeyay tuumbadii baa halkii la igu galiyay 3 bilood baan dawo qaadanayo iyagii baan la joogay isaaq xabad joogta ee ii timaada habeenkii bay soo dhukusi jireen xabad igu iman jireen xamar kii kale meel maba u tagi karo gurigooda kan gurigiisa galo wuu iga baxsan jiray marka maruu khadrinta ilaa waqtiga uu baxay Ibrahim naxariistana ka waraabiye xiriir dambe oo warqad ahayn kusoo sameeyeen amba adu islam jira dhaqaaqi wax warada ma ka hesho marka ها وان كهل جري حدود ورك وان كهل جري وان إلا waxa isaguna sheekada iyo operationka iyo ilaa markii ay guriga joogeen ilaa waxa soo dhan ku jiray ninka leeyahay Xasan Quure magaciisana waxa la oran jiray Xasan Quure Diiriye magacyo wada lahayn rag qofna magaciisa caadiga muu lahayn magacyo wada lahayn marka warka waan ka heli jiray waxtarka waan la siin jiray Xasan Quure iyo rag joogan siin jiray adigu 3 bilood markaan dawadii soo qaateen ka bacdi soo noqday xamar ku soo noqday Hargeysa waxaan soo noqday iyadoo gurigayga ku xigay ay mareexan iibsadeen ka bacdi markay guriga iibsadeen waxay ku yiraahdeen waan ku guursanayna in adigu wiig meelaha joogay baa nimankii baa yiri waan ku guursanayna waxaan ku dhima guursanaysaan naagdoon lama tiidin magacdoon baa tin ma habla ka weydan magaalada maxay u falaysan aniga gabadhaydan la dilay la toojar gareeyay carmalka bas dabeedna halkii waxay noqotay inay sheekadii adkaato inuu maqlo marxuumkii xitaa isagoo xagga jooga in qoladii aslamta gudaha joogtayna maqlaan in odaygii aw shukriye xarta ahaan jiray uu ii yeedho inuu wiila adeer sida lagu taliyo yeel magaalada waad ka baxaysaa annagoo joognana lagu markaa dul guursanayo dabeedna adigu sidii ay igu taliyeen nimankii aslamta gudaha joogay oo Xasan Quure ka madax ahaa ayaan ku baxay burca xageedaan markaa ka galay aslamti aan ku talaab ma jirta maruu khadar barnaamijkan waayaha qurbaha markuu ka nimaadna halkan ka dheer iyo taariikhda aan kaga sheekeynayno rabbi naxariisana ka waraabiye marxuun Ibrahim Ismaaciil Koodbuur iyo damkaadintii kale ee islaam dalka soo halgantay waxa jira qayb wacyigelin oo dhalinyarta loogu talagalay dibka iyo dheefta taala qurbaha oo waxa jirta dhalinyar badan oo tahriibta marka bal sawirka si yaalashan qurbaha waxyaabaha nolosha sayaxad xilliga tagtaysa loo qabsan karayo ankaas waa meel adag qaaxana soo arkayo qaaxadante waa meel rafaada waa meel aad kabahad salaadii subaxii xidhato aad habeenkii bixinayso waa meel aad ilmaha yar raacayso waa meel aan ilmahaaga dili karin waa meel aan ilmahaaga ku qaylin karin waa meel gabigaaga badda lagu ilaashanayo oo aad ugu jirto xero hase ahaatee waxa nageysay danta anaga maanta hadduu Ibrahim nool yahay wadankuna hagaagsan meel aan ku doorsaday meel aan uga bixi lahaa haba yaraatee may jirteen laakiin waxa nageeyay duruufta iyo meel aan cag dhignaba markii la waayay qurbuhu aad buu adag yahay qof walo tagaana markuu